وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدنيال يمربوين كسو دوادا مداش السما تلس ومركا لإذين سو بردقى سواعي قلين لو جيدني ضدك سوماليات أما سوماليا كو هلا ما أنت وعي قلين تينو وحا أي كو وجهانتا هاي وحا ديمقراطيات أي تهي سواشان سويدين كرنا مركا وحي تان كو بلاوني ومحي ديمقراطيات انتان اودا قلين بانسكين برو مقعيقو حسين داهر دربي كوداقن مغالada ستوكهولم ديمقراطيادو waxa weeyaan muwaadino wax la isweydiin karo waxaan oran karnaa dimuqraadiyadu maxay ka kooban tahay xagee ka timi xagee laga soo meengoriyay dimuqraadiyadu waxay ka soo jeedaa dalkaasi Greega ama Greega hore aan iraahdee su'aasha aan isweydiin karno waxay tahay macnaheedu maxay tahay معناهيد waxa weeyaan laba kelmadood bay ka kooban tahay mid ah demos iyo mid ah kratos waana afka Greega demos oo macnaheedu yahay dadka ama dad iyo kratos oo macnaheedu yahay awood ama xukum ama dadka qaar ku soo xukum sida darteed macnaheedu marka la isku soo duubo wuxuu noqonayaa dadka ayaa leh talada dalka waxaan kale oo oran karnaa dimuqraadiyadu waa talada iyo hab maamulka dalka oo lagu wado sida dadka ay doonayaan madaxweynihii hore ee Mareykanka oo la oran jiray Abraham Lincoln waxa uu isagu yiri markuu sharxayay fikirku shacabka ayuu ka yimi oo marka luqadda Ingiriisiga uu ku sheegay wuxuu yiri it's of the people shacabka ayaa sameystay ama curiyay by the people ujeedaduna waa in shacabka loo fuliyo adeega for the people macnaha saddexdaasi wax inay dadka fikirka la yimaadeen inay iyagu curiyeen oo ay sameeyeen iyo in iyagu doonayaan in wax loogu qabto su'aashaan isweydiin karnaa waxay tahay marka taasi ma tahay wax ka hirgalay wadankeena Soomaaliya muddadii aynu dimuqraadiyadda sheeganaynay mid kale aan kugu darayaa dimuqraadiyaddu sideedaba wadaadada qaar baa ka hadlay Soomaaliyeed dimuqraadiyadu mararka qaarkood waxay ka hor timaadaa diinta islaamka waxyaalaha qaarkood tusaale ahaan dimuqraadiyadu waxay ku taagan tahay ama saldhig u ah cod la yiraahdo haldheeri tusaale waxaan u soo qaadan karnaa koobka biyaha ee la cabo oo Ilaahay noo xalaaleeyay haddii dadkaasi marka aan leenahay oo dimuqraadi ahaan bay u fikirayaan oo ay ku doodaan biyahaasi koobkaas waa xaraan oo la yiraahdo cod ha loo qaado haddii 51% ay noqdaan dad yiraahdo waa xaraan macnaheedu waxa dhaqan galaya sharci ah in biyahaasi cabitaankooda ay xaraan yihiin marka waa markaas wadaadadu ay leeyihiin marmar bay iska hortimaadaan laakiin dad badan baa xal mooday sidaas ayaan adduunka ugu dhaqmaan waa haddii sida uu yahay mararka qaarkood loo raacayo marka Soomaaliya ma ka jirta arintaasi kama jirto waynu cadeyn doonaa sababtana dimuqraadiyaddu waxa lagu micneeyaa oo soo sheegnay meesha ka timi kelmadda laakiin waxa lagu micneeyaa inay shacabku is xukumaan in dadku ay doortaan xubnaha uu caqligoodu siiyay inay ka xushaan shacabka intiisa kale oo yiraahdaan intiina hogaamiya ama dadkiina hogaamiya yani dadka iyaga matali doona kolka kuraasta la fariisto in dadka la dooranayo ama wax dooranaya aan la musuqmaasuqin oo musuqmaasuq laga fogeeyo inay jirto habraac muwaadiniintu fahamsan yihiin oo waliba lagu kalsoonaan karo waxa la isweydiin karaa waxay tahay hadda waxa ka jira dalkeena
ma yihiin wax lagu kalsoonaan karo, ma yihiin dadka dooranaya dadka noo fariisan doona kuraastaasi inay yihiin dad iyagu markaasi matali doono dadka meesha u fadhiyeen, mise maalintii la doortaa ugu dambeysay dadka. qodobo muhiim ayaa jira oo loo baahan yahay inuu qofka fahmo oo furana u ah dimuqraadiyaddu waxay tahay. haddaba maxay tahay waxaasi? ixtiraamka xuquuqda aadanaha waa muhiim. diinteenana faraysa qofka bini aadanka inuu ilaahay sharfay, sidaa aawadeedna qof kaloo bini aadana inuu sharafta ka qaadi karin. marka xuquuqda qofka bini aadanka uu leeyahay waa muhiim in la tixraaco. xorriyadda asaasiga ee muwaadinka iyaduna waa sidoo kale waa muhiim. waxaa kaloo muhiim ah qabashada doorasho xor iyo xalaal ah ayaa iyadana furihii ah. waa meesha laga yiraahdo in la codeeyo. nidaam jamac ah oo xisbiyo iyo ururo siyaasadeed ku dhisan. hadduusan jirin wax dimuqraadiyada markaa ma jirto, macnaha badiil ma helaysid. waxaa kaloo jirta qodob kale oo ah kala saaridda awoodaha iyo madax banaanida ay leeyihiin laamaha dowladda. macnaha haddii kuwii sharci dejinta, kuwii maamulka iyo fulinta lahaa, iyo kuwii shuruucda dejinayay, haddii sharci dejinta iyo maxkamadaha iyo maamulidda kuwii lahaa hadday isku milan yihiin waxba kama suurtagelayaan, sababta hal bay isku noqonayaan. xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, inuu qofka fikirkiisa sheegi karo isagoo aan ka gabanaynin ama ka baqaynin in wax loo geysta berri ka maalin. hogaansanaanta dastuuriga hogaansanaanta qodobada dastuuriga ah ee dhammaan hay-adaha dowliga ah laga doonayay inay hoggaansamaan, taasoo tusaysa inuu dastuurka uu leeyahay awood sharci. marka maxaa keeni kara qodobadaasi furaha u ah in dheelitir ku yimaado? dheelitirka dimuqraadiyadda waxaa keeni kara haddii qodobadaasi mid ka mida la waayo. tusaale ahaan xorriyatu qowlki baa la waayay, ama qofka hadalkii uu hadli lahaa oo si xor u hadlaha isagoon baqanayna ayaa la waayay tusaale ahaan. markaasi shaqadii la doonayay in la qabto si hufan looma qaban doono. waana fahmi kartaan sababta. taasina waa tan abuurtay habka ila meereysada ah ee maanta dalkeenii muddadaasi ka aloosnaan, kana aloosnaan doono sanado badan oo soo socda haddii aan talada dalka sida loogu talagalay ama sida ay hadda ku socotaba wax laga bedelin. aan isweydiinaya marka dimuqraadiyadda ka jirta dalka Soomaaliya waa dimuqraadiyad noocee ah? maxay tahay? maxay kaga duwan tahay dimuqraadiyadda adduunka intiisa kale ka jira? maanta dimuqraadiyadda Soomaaliya ka jirta waxaan oran karnaa ma aha mid jirta, waayo qofkii la doortaa lama xisaabtami karo. haddaadan qofkii aadan dooran aadan la xisaabtami karin ama isagu khasab kugu leeyahay, haddii dimuqraadiyad jirta ma aha. waxay kaloo aaminsannahay in sababtu ay tahay xubnaha dooranaya in la iibsaday. xubnaha dooranaya qofka la xisaabtamaya in marka hore la iibsaday. Soomaalidu waxay tiraahdaa af wax cunay xisho. marka nin wax cunay oo nin kale wax ka qaatay waxa weeyaan muwaadinkaasi ma aha muwaadin xor ah, waa nin la iibsaday. qof hore loo tijaabiyey oo la og yahay wuxuu galo iyo wuxuu gudo, hore loo soo arkay, shacabka meeshii uu dhigayna la ogaa, ayay maanta Soomaalidu dib u dooranayaan. weligoodna u samayn jirin, dib u dooranayaan. tusaale waxaa kuugu filan dowladda federaalka, afkaba aan ku ballaariyay madaxweynaha hadda fadhiya, dib baa loo doortay. waxa uu ku soo kordhiyay marka horena waa la ogaa, sideedii ayaa misna lagu qaatay sababta dadka la iibsaday. waxaa kaloo ka mid ah dowlad goboleedka Puntland, qof aad hore tijaabisay haddaad dib u dooratid meeshii aad joogtay meel ka liidatun baad tegaysaa. tusaale kale waxaa noogu filan meesha la yiraahdo Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland oo intay jirtay hal nin kaliya haya, welina u lisanaya sidii uu xukunkaasi ku sii hayn lahaa. doorashooyinka Soomaaliya waxay la mid yihiin kuwa dugsiyada dhexe ee wadamada aynu ku noolnahay laga dhigo, oo ah tijaabi, bal sidaa wax u dooran lahayd tijaabi. tijaabadaas waxa weeyaan 12 jirada ku nool, tusaale ahaan anigu dalka aan ku noolahay, waxaa la baraa doorashadu waxay tahay. maalin baa loo qoondeeyaa markii iskuulka doorasho laga qabto, way tijaabanayaan, fasalkii ku bilaabayaan kadibna iskuulkii ku bilaabayaan. maamul goboleedyada iyo tan Soomaaliya ka jirta maanta waa tijaabi,
haddaad madaxweyne tahay haddaad ku-xigeen tahay iyo haddaad cid kala tahay iyo baarlamentarian haddaad tahayba waxa weye tijaabi. marka inaan ku faanno aan doorashaynu qabanaynaa tirakoobkoodan lahayn, dhabadii loo mari lahaa lahayn, hufnaantii iyo hagaagii laga rabay aan lahayn, in la yidhaahdo doorashaa la gelayaa aan lagu magacaabin waa istijaabinaa sida 12 jiradii Yurub ay ahaayeen wax laga labooda way runtii. marka waan fahmi karnaa hadday arrintu sidaa tahay waxa laga filanayo haddiiba ay adeegii uu ku soo ururay arrintan aan tijaabino. maxaa talaa marka doorashada ugu horeysa ee 3 degmo ee Puntland maanta ka socota baan ku darsanaynaa wax haddaynu nahay Somatalis. waa inay dadku fahansan yihiin ay og yihiin in barakacyaal tiro badan iyo dad Oromo ah iyo Ethiopian ah ay kaararka laga safay baahi sadbursi aawadeed, sadbursi awgii in looga safay. ku guuleysiga waxaa kaloo qodob ah, ku guuleysiga codadka waxaa dadka loo ballan qaadayaa 10, 20, 50 ama $100 oo la leeyahay haddaa codka dhiibtid ama aan ku guuleysto intaasaad helaysaa, ama haddaad ii codeysay iminka waxa weye lacagtaasaan ku siinaya. weliba qofkaasi masaakiinka oo feelka la geliyo codeynaya waa la daba socdaa, waa laga hubinaya inuu codeeyay in kale si 10 ama 20 loo siiyo. waxaa kaloo jirta arrinka aqoonta maqashiin waxa uu qaban dadka waa loo sheegaya in wax loo ballan qaadayo, laakiin waanu soo ogaanay hadda doorashooyinka degmooyinka kale ka soo dhacay 30 inay weli baylaha yihiin, dadkuna weli wax ay cunaan la yihiin, dad un baa ka qadeeya. marka sidee baan marka qorshaha wuxuu yahay oo madaxdu tahay sidee baan xilligiisa dambe kursiga ugu guuleystaa? waa wax lala yaabo, wax aan lagu farxi doonin weeyaan. waayo waxaynu ognahay in magaalooyinka qaarkood aysan weli dhisan ama aysan helin golihii deegaanka ay iyagu doorteen. marka timirta horeba dib loo waayay tan maxay taraysaa? taa waa qodob. in shacabku ay arkayaan in dalkii ay dugaag ka adeegteen balse aysan garanayn sidii ay wax ka yeeli lahaayeen, iyaduna waa qodob aad u culus runtii. dad og arkaya caqli leh in dugaag dalkii ka adeegtay meel walba ha ahaato, federaalka ha ahaato, gobollada kale ha ahaato, dowlad goboleedyada ha ahaadaan, welina sidii lagu jiro. waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo la isweydiinayaa habraaca doorashada inuu khariban yahay. Puntland maanta waxaynu ognahay hadda ka horna waan sheegay in 400,000 kaarara la qaybshay oo la yiri waa la diiwaan gashay dadkaasi. su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay dadka 18 sano ka weyn la leeyahay inay codeeyaan tiradoodu ma 400,000 baa Puntland. soo ma aha waxaan oranayno marka waa tijaabi 12 jir haddaad tahay waxa dimuqraadiyadu tahay. shacabka waxaanu ku baraarujinaynaa inay fahmaan waxyaalaha ay xaqa u leeyihiin si ay ula xisaabtamaan dadka markaasi ay dirsadeen. ogaadana mid in aad dirsatay hoggaan ku sheeg balse wixii aad u dirsatay aan kugu maqnayn, adiguna lagaa sugayo marka inaadan weydiin su-aashaas, laakiin lagaa sugayo sacabtumid inaad samaysid. aad baa umahadsantihiin dhegeysigaa dhegeysateen kasoo falceliya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.